السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هالكان نجت تامنيسين ويانيت كيتشن اند بيوتي تي في. ولا لا يوحسوا عليه فضلا سبسكرايب نو سارة ولا لا هور إلي جو محل هاي نو كوميتي لايك وشير نو شير كريه برنامجك وكم هسنتين دعوشة أي تامنيسين من البادوني ده يقدر هنيسين هالكان نجت تامنيسين ويانيت كيتشن اند بيوتي تي في سود هذا كعمل فرن قلب فرن جنيد سالفية يانيت تمانتو حني وتا ayaaniintu waxay u tahay sheeko yar oo kaaban oo laga bixi karo waxyaalo badan waxa la yiraahdaa sheekadan ama qisadan la dhahaa gabadhii aqalad ahayd waa gabadhii aqalad ahayd sheekadeedii waa ma sha Allah gabadhii aqalad ahayd iyo sidii aqal ku noqotay gabadhaas ma sha Allah waa gabadhii aqalad ahayd sheekada waxa la yiraahdaa gabadhii aqalad ahayd ما شاء الله كبداس كبر ولا شيء يكون ولد سوماليا سومالي يكون ولد كبدان يصبر بارتي رير كدلتي كصبر بارتي مركي كبد بربارتو ويكورستا نين كيان كيده أي كورستا ويلكم كورسني سويل هو حيستمعهن ويل اسكو نولشيس نورمال أي اسكهد نول أنا كفانتي لا مهن بس ويلكي بس كورسدين كوريو تكتي كبدي مركز سداس اسميساي ما شاء الله كوريو تكتي غير كده دقتي بس ويل كده وين هلها نين كده اي مين حكودا نين كايدا قبي اما حاس كده حاج كده اما سي كده ما نعرفته وقات اما عرفته اقان سي كده ايا waxaa usoo baxday inuu dhoofitaan oo dibadda meel dheer ma ahan ganacsi inuu ka furto ama ganacsato ayuu wuxuu ka ahay Muqdisho ganacsigiis wuxuu soo wareejiyay xaqiiqi Kenya markuu soo wareejiyay Kenya soo aadi jiray laba caruur ay wadatay markii kasoo tagay laba caruur ay haysatay oo kasoo tagay asxaabay sheekada waxay noo mareysay gabadhii ninkeeda ka soo aaday Kenya ganacsi halkaas ka furtay 6 bilood ka bacdi mar uu imaan jiray gabadhii uu imaan jiray 6 bilood ka bacdi uu imaanaya mar walba soo 6 bilood uu imaanayay marka dambe hooyadiis ay gabadha la tagneed waxay hooyadii soo jeedisay tale inuu guursado xaas labaad maxaa dhacay hooyo aniga xaaskeyda way dhalinyar tahay hadda guursaday wax dhibaato naga dhex dhicin waan ku qanacsanahay markaas tiri hooyo waxaan rabaa inaan arko caruurtaada kale caruur badan inaan dhasho ayaan jecelahay sidaas markay hooyadii ku dhahday wiilkii wuxuu la tashtay xaaskiisa uu tagay wuxuu ku yiri baayo hooyo sidaas idhaahday maxaan sameynaa wuxuu ku dhahay haddii hooyo sidaas ku dhahday ay ku tiri hooyo haddii sidaas ku dhahday haddii hooyo hadalkeeda wax lagama keeni karo soomaahan haddii hooyo sidaas ku dhahday dhib ma lahan iska guurso gabadhi laakiin qalbigeeda uu guwanaya laakiin waxay sameeyso ma garanayso gabadhi way fikirtay waxay ku fikirtay ayada hooyo la'aan waxay soo kortay aaba la'aan soo aabihii hooyada way kala tageen marka dhibaato ayay soo martay marka waxay dhahday caruurtaada dhibaatada adiga aad soo martay iyo marin asxaabi horta waxaan leeyahay fadlan hataa igu cusub tihiin please subscribe noo saari channelka hataa hore noola joogteen commentiga iyo like noo share gareeya barnaamijka soo dhawaada ayaaniinta kitchen and beauty tv asxaabay gabar sheekadii waxay noo mareysaa sidan tan halkan ayay noo mareen sheekadii waxay noo mareysaa gabadhii ninkii ku raacday inuu guursado laakiin ayada qalbigeeda diyaar uma ahan laakiin wuxuu ku fikirtay adiga inta ilmahaada ay noolaa lahaayeen hooyo aabalaan iska dhaaf okay gabadhii ninkii uu guursaday alaaba la soo gaday arooskii la diyaariyay hooyadiisii iyo asiga walaalihiisii iyo dadka qaraabadiisa ah guriga la hagaajiyay wax walba la diyaariyay karaal noqdo qeylada yar oo soo gaarayso asxaabay marka gabadhii waa loo diyaariyay wixii dhan loo diyaariyay arooskii la diyaariyay gabadhii iska aamustay way fikirtay asxaabay marka waxay ku fikirtay gabadhii
inay ninkeeda dhaqato gurigeedana oo burburin caruurteedana ayna noqon aabba la-aan bes okay gabadhii waxay qaadatay go-aan ah inay alaabteeda soo iibiso siday uga qayb gasho arooskii alaabteeda qaatay waa guriga jiifkeeda macnaha alaabteeda waxay soo iibinaysay dahabkeeda soo iibisay waxay ku soo iibisay alaab qurux badan ay soo qadatay fadhi qurux badan fadhiga iska bedeshay wixii kasoo haro lacag maxay samaysay waxay kusoo qadatay waxaan arooska la saaro shaashash iyo dircoon iyo ay soo qadatay 5 gabdhood oo asxaabteeda kamid ah tiray walaalayaal ana ay casuumantihiin iyo imaado maal hebel soo maalinka kooda arooska miyana tegin laakiin waxay aad rabtaa todobada waxay rabtaa inay shaashaadka ay ka qayb gasho ayadoo dadka istusayso inayna masirsaneen okay gabadhii sidaas ay samaysay way baxday waxay aaday suuqa baatiyaal soo katay asxaabteeda wacatay way balansatay waxay tiri maalin hebel aroosa qabnaa inoo imaada okay gabdhii marka meen u sheegin laakiin waxa sidee waxay ka wato iyo waxay ula jeedo meen u sheegin gabdhii way balansatay way umaadeen dharkaana dhibto waxay ku tiri heblaayo intaan saar adin heblaayo intaan saar okay sidii marka la dharkii loo kala qaatay gabdhii oo kala qaateen okay bes asxaabi marka gabadhii arooskii tageen ayadii asxaabteedii arooska ka qayb galeen shaashash waxaa la keenay gabadhii aroosada meesha shaashka lagu saaraa la keenay gabadhii alaabtay watay shaashashkii maxaa la dhahayay wixii oo dhan gabadhii u soo saartay gabdhihii la socdeen asxaabteeda ama saaxiibadeedii way saareen ayagana marka waxaa la yaabay duqdii oo sudahdii ama wiilka hooyadiis way la yaabtay waxay la yaabtay gabadhii lala guursaday haddana asxaabteeda usoo wadatay shaash u saarayso ayada asxaabteeda way la yaabtay macnaha wax aad macnaha oo qaliil ah waa inay qof maxaa la dhahay naag lala qabay ama naag lala aroosaayo shaash u geyso ama wax u geyso eeba soo dhaweyso aan dhihi karaa macnaha inay macnaha inta guriga tagto shaash ka qayb qaadato shaasharkeeda macnaha waa wax lala yaabaa gabadh macnaha sheekada xala gabadhii caaqilada ahayd qisadan waa qisadii gabadhii caaqilada ahayd gabadhaas tanta ay leedahay waa tan dheer tanta ay leedahay waxaa waaye inay caruurteeda ayna baylihin soo maanta waxaan arkaynaa soomaali badan hooyooyin badan ama aabbayaal badan guryahooda ku tutumaayo wax iisi ah wax aad u fudud oo la xalin karo aan dhihi karaa ama naag ugu tegayso naag kale gurigeeda uga cararayso ayadoo dhibaato kale oo kaliftay ayna jirin naag soo gashay gurigeedii ama ninkeeda guursaday inay uga cararto ilmaheeda iyo reerkeeda marka tan waxay tusaale u noqonee qof walba oo maanta rajeynayso marka ninkeeda la guursado inay ka cararto gurigeeda ilmaheeda macnaha ay tusaale u tahay marka ma ayna u baaylihin caruurteeda ayada oo ku fikirayso dhibaatada ay soo mudatay markay yareed marka maanta waxaa arkaysaa dad badan oo kala tegaayo waxyaalo iisi ah marka gabadhaas waxaan bixiyaan gabadha caaqilada ahayd waa gabadha caaqilada ahayd runtuna waa caaqilad macnaha si u fikirtay soo dhibaatada ayada soo martay way aragtay aabaheeda ka tagay hooyada soo korisay aabalaana soo kortay marka waxay diidaysay caruurta ayada dhashay inay wadada ayada ku soo barbaarto inay ku barbaarin marka waxaan kala talinayaa hooyooyinka la guursado ama dumarka la soo guursado inayna u daadin caruurtooda naag kulay naagtaas irsaqeedana kama cunayso wax kaloo nolol kalena oo hadda ay saamaneynayso malahan soo hadda ayada sabarto waaye marka anu waxaan bixiyay gabadhaas gabadhii caaqilada ahayd gabadhii markii arooska kasoo laabatay gurigeeda ku laabatay wax dareena ma ayna tusin sutahdii way la yaabtay sutahdii iyo familka wiilkiisa aad bay u yaaleen way fajiceen hadeen gabadhan maxaa ku dhacay gabadhan lala guursaday iga raali noqda asxaabta haddana maxaa ku dhacay sabab sidan u yeelaysaa gabadhii lala guursaday saas u saarsaa maxaa ka qaldan
soo waa ogtahay qofka dadka biniaadanka ah haddaad xataa isqaloocisid waxaa lagu waa qaloocan tahay heblaayo, haddaad toosanta waxaa lagu leeyahay heblaayo way toosan tahay, haddaad madowda waxaa lagu leeyahay way madowdahay, haddaad kaawanta waxaa lagu leeyahay waa kaawanta, wax lagu tilmaamo mar walba adi wax baa lagugu tilmaama. tilmaam la-aan mahaanaysid oo qof nadiif ah macnaha simpri hadal ma lagaa dhaafayo, mar walba wax baa lagaa sheega. bis marka gabadhii aqalad ahayd, gabadhii sida sheekada u socoto ninkeedii gabadhaas guursaday ayadii reerkeeda dhaqatay, waxay sameysay ninkeedu wuu baxay. markuu ninkeedu baxay dahabkeedii ayay soo ceshatay, alaabtii katay dahabkeedi soo ceshatay, gurigeedii joogtay. siday gurigeedu joogtay ninkii wuu imaaday, 6 bilood dhamaatay, wuu soo laabtay, wuu imaaday ninkeedii wuu soo laabtay. dahabkii markay maqashay inuu soo socdo dahabkii katay, alaabtii iska bedeshay, wixii dhan iska kala bedeshay. ninkii imaaday, hooyada way ku qarbaxday waryaa ee ku dhahday adiga labada naagood waad qabtaa weyn kuu siman yihiin, sababta naagtan maxaa la lahayay naagtaada weyn aad alaabta ugu dhigaysid gabadhaan wax ugu dhigayn maxay tahay alaabta ugu bedelayn. markaas wuxuu ku yiri hooyo aniga ma gabadhaas heblaayo ayada waxeeda ayada wadato ayada iska bedesho, aniga wax aan qof ka bedelay ma jirto iyo alaabaan soo kala dhahay waxba ma jiraan. hooyada way wadata marka ilaa gabadhaan sirta ee wadato waxaa waaye inay marnaba ay murug iskelin ee nolosheedu si tartiib ay u wadato ee dadkana ay tusto inay tahay qof isku filan. waxaa la yidhi gabadhaas isku filan aldhihi kara waa isku filan iyo gabadhii aqalada ahayd. okay gabadhii marka ninkeedu wax badan oo jooga adiga labada xaas, gabadhii weyneed reerka weynaa uura yeelata tii kale uurma yeelan waa iska baxay, meeshuu ku laabtay adig wiilkatana mar labada soo noqday. adig gabadha mar walba waxay bedeshaa gurigii wixii u yeelay iska bedeshaa. markuu imaado wixii dhan ay bedelee, markuu baxo alaabtii kadaysa dahabkiisu ceshana. bis gabadhii sidaasay u ahayd, ninkuu soo laabtay. marka dambe waxay dhahday waryaa wuxuu yiri hooyo maalin kasta aninta imaan karo, marka xaaskayga weynaan wadanayaa. waxay ku qalqaalis hooyada inay midda yar oo wato, markaas ku yiri hooyo marka dambe gabadhayda wax badan aan ka maqnaay, marka next time ayaan wadi doonaa. wuxuu ku qalqaaliyay gabadhii weyneed inuu wado oo hooyada macnaha ka dhaadhiciyey ama ku qanciyey. is hooyada waqti daba aad laasta hooyada way aqbashay, gabadhii oo waday wuxuu Kenya keenay, halkaasay ku nooleed. sida halkaas ugu nooleed hooyadii markay aragtay in wax badan ku nooshahay gabadha halkaas mar dhifan oo gabadhan u imaanayo, waxay ku tiri waryaa gabadhaas soo celi ee tan wad meesha aad tankaysay kee. waxay ku dhahday gabadhan meesha aad taaskaysay kee taasna soo celi. okay bes gabadhi wuxuu ku yiri waan ku celinaa Soomaaliya ku keenayaa. markaas wuxuu ku tiri waryaa haddaad Soomaaliya i geynaysid ya ninkeeda waaye ama xaajigeeda ama saygeeda, waxay ku dhahday hadda Soomaaliya i celinaysid waa inaa guri aniga aan leeyahay aad ii dhistaa intaan Soomaaliya tegin. okay wuu ka aqbalay, guri u dhisay. horta sheekada waan iiga soo kala dhaafee, gabadhii kale way maseertay, waxay tiri aniga ninkan ma rabo, waxna mayn u dhalin, waan kala tegaynaa, ha i furo. ay kusoo kaabsatay. gabadhii kale sidiyaa lagu furay, tanaa meesha kusoo hartay. hooyada marka waxay tiri ilaa ilaabo reerkaaga waa inaad Soomaaliya usoo celisid, aniga waxaan caruurtaada inaan arko waa inaad soo celisid oo Soomaaliya keentid. hooyada marka waxay intaa kuu soo wada, hooyada waxay tiri ma rabo aniga wadamada ajnabiga macnaha arti qurbe iyo inaa wadamo kale oo Soomaaliya si aada ma doonaayo, ilmahaada soo celi. gabadhii waxay ka dhaadhicsan ninkeeda, waxay ku dhahday waxaan rabaa inaad guri ii dhistid haddaan noqonayo. marka wuxuu ku dhahay ninkeedii okay gurigan kuu dhisaa. sidii guriga u dhisay ayadana Soomaaliya sidii ugu laabatay. qisadii gabadhiina halkaasi kusoo afjarantay. gabadha satay shalay iswaali lahayd, macnaha heerka maanta ay joog lahayd mana joogteen, way sabartay. sabarkiisa helan maxaa la sidkiisa ayuu helaa, aakarkana way ku guuleysatay. ninkeedina ayadaa u hartay, gabadhi kalena way iska baxday. markaas waxaa meesha sheekadaas waxaa ka saari kartiin micno badan, waxyaalo badan way niiga soo baxayaan, sababtoo qofka
waxaa la rabaa inuu xal u keeno dhibaato walba oo qabsato soo gabadhaas xal ayay samaysatay dhibkee haystay ee ugu gudubto kale maanta waa ka siinaa dumarka haddii naag laga guursado maseer qof aan maseeraynin ma lahan qof walba way maseeraysaa laakiin gabadhaas waxay gabdhaha dheeraatay inay ahayd gabadhii caqalada ahayd oo aad u fikirtay una fikirtay dhinac dhanka fiican aan u fikirin inay familkeedii ama ilmaheedii ay taayacdo ama iskaga tagto ay baylah ugu tagto ama ayadii ay tiraahdo anaa ilmihii haysana ayadoon hayn karin ilmihii ay ku dhibaatooto marka meel baad dunka joogtiin waxaan leeyahay channelku waa channelkiina subscribe noo saara fadlan hadaa ku cusubtaa subscribe noo saar haddii aa hore noola joogtan waxaan leeyahay share comment like noo share kare asxaabta soo dhawaada meel baad dunka joogtiin Soomaali Maxamed waan salaamay sidaas nabadiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh